بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى وحوغا كوبان بين كورن دونا كيفية استقبال رمضان، أما بشان رمضان يقفك مسلم كاسيدا لوغا باهيين وديار كروبه. حين كجرنا شعبان أيام كدبنا إن شاء الله تعالى رمضان بين قارنا. رمضان وابل الصومه وبالقيام الليل لوكعه وبالنصوص تكسر ارتال عتق من النار. إن شهادة لها لقفك إن نار إلهي كحريي وإن شركيس النار تابا دونين وبال داغ قفك مسلم كوبرتي وحبحنته وبالقفك استو مسلمي المصالحة مع الله أو الرجوع إلى الله وربي النقض سبحانه وتعالى. وابل النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام سدادتك اللو ترغيبين يلو علي سيني يا الله سبحانه وتعالى إن الباب دا جنة الله فره، الباب دا النار تنا لحده، وحيابها دتك عرقلة دي جنة دا اسكهر تاقه أما النار تكدر قيا كتخن تخينا وابالستي الشياطين تواوين وقوين يغنا إن لحده. وبالروح ذا قفك مؤمن كاي طاهر نقطه آثارتي يذنوبتي والسيدية ما حنبار سنايا سنة كردنك سوداعي سينا ربي كدتشيو. إذا نوحي سويدين تلي مركاسين وقودي أرقروبينا حالينا قربا انت ugu badan dadku qolana dee maba oga alla hanuuniye inta ogina waxa laga yaabaa inuu diyaar garowgooda noqdo guriga raashin fiican in la dhigo, shaqada inuu iska yareeyo, hurdada iyo cunadaba inuu badsado oo waqtiga cunadu baynu bedelaa oo halkii maalintii wax laga cuni jiray baynu u raraynayno maxay habeenkii cunno. markaad eegto guriga cunada la dhigo bisha kale iyo bisha ramadaan cunada la dhigo marar badan waxa badan maxay ramadaantii cunada aynu qaadano. al-asluna maaha cunaynaynu diyaar garowno, waayo maanta dunida inteeda badan caafimaadku waxay isku raacsiisan yihiinba in la soomo inuu caafimaadku ku jiro oo ah in caloosha la nasiyo oo cunadu markay yaraato waxay dhahdaan beerkaagu wuxuu waqti badan u helayaa sumuumtii jidhkaaga ku jirta inuu safayn karo. waxa cunadu markay yaraato uu jidhku helayaa bay dhahdaan renewal, old cells koo dham inay dhintaan jidhka bay dhahdaan unugyada daciifka iyo unugyada gaboobay wuu dilaa, unugya cusub baa dhasha markaa qofku renewal caafimaad buu ka qaadaa. walidaalika baa maanta miisaankaa dhinma kanbaa dhaca xanuuno badan bay ku daweeyaan ilaa ay xanuuno psychotica ku daweeyaan maanta oo loo isticmaalo in qof 36 maalmood ama wax ku dhow la soomiyo iktiaabiyada iyo xanuunada qaarkood in lagaga daweeyo. maanta dad badani waxay u soomaan inay jidh qurux badan yeeshaan, dadka qaar waxay u soomaan in wasniga iyo miisaanka iska yareeyaan, dadka qaarkood waxay u soomaan lilidiraab, dowladda iyo wixii laga cabanayay in xabsiyada iyo meelahaas oo kale in cunada laga soomo idiraab iyadoo ah. laakiin waxaynu isweydiinaynaa qofka muslimka ahi maxaa asale uu soomaa? waxani waa tabac, yani inaad caafimaad hesho ama inaad kan heshaa maaha asalkii soonka. asalka soonku waa maxay? yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun baa ilaah yidhi. kuwa iimaanka laga helayow
soom baa laydinku waajib yeelay sidii ummadihii idinku horreeyayba loogu waajib yeelay cibaadaadka qaarkood waa qadiim mundu qidami zamaan intii umamku cibaadaad la wada faray baa jira hayaakil alcibaada wa kayfiyatiha baa kala gedisnaatay مثلا صلاة وعبادة قديمة صومك وعبادة قديمة حجك وعبادة قديمة والغاية بقاب كلو قدن يامل لو سمينين كلا قدسينهين نبي كستا تشريع إلى سوسي إنه كقدسي لكن أصول العبادة أركان الإسلام قال إلهين طبضا وعبادات قديمة وقرآن كوينات المامية صومك إلهي وحينا لي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صوم بالله واجب يالي sidii loogu waajib yeelay kuwii idinka horreeyay maxaa laynoogu waajib yeelay ma ciqaaba oo inta layna ciqaabaaba dembiga laynaga maydhaya miya maya ilaahay aayadka dambe wuxuu leeyahy yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay wuxuu idinla rabaa inuu noloshaba idin fudaydiyo soonkaba waxaa laydin faray in noloshu idin fududaata baa la leeyahy culaysna rabbi idinlama rabo idan soonka culays kuma jiro haddii sidii sharcigu uu sheegay loo samaynayo waxaa ilaahay ina farayaa sababtu waa maxay lacalakum tattaquun ina mansilatu taqwa gaadhaan aslu lcibaadaba mansilatu taqwa bay ku gaadhsiisaa yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun baa ilaahay yidhi wardadow rabbigiin caabuda idinka idin abuuray iyo kuwii idinka horreeyayba maxaa u caabudaysaa lacalakum tattaquun kayta tattaquun haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahanay ramadaan in loo diyaar garoobo munaafiqiintii ka hadhay dagaalka ee dabeetana cudurdaarka nebiga ula yimid dagaal maxaa la yidhaha tabuuk markii loo baxayey tabuuk waa dowlad weyn baa dagaal lagala hortegayay oo dowladdii romanska iyo dadkii raacsanaaya waktiguna wakti kulul buu ahaa oo waktigan khaliijka 40 iyo 50 ka dhacaan yani wakti samara xagaaya bay ahayd dabeetana bil wakti ku dhadhowna waa la lugeynaya xagaaga marka ragii daacadda ay ka ahaydna way u diyaar garoobeen inay lugta iyo wuxuu fuuli lahaa iyo bisha siduu socon lahaa kuwii waxay fuulaan waayeen mu'miniinta ahaa waa kuwii nabiga u yimi iyagoo ooyo la ilaahay rasuulkiisa iyo wax la saar ma haysano geel iyo farda iyo waxaanu fuulo toona ma haysano inaanu kaa hadhnana ma rabnay waa kula dagaalgalaynaa ee waxaanu raacnana saar qolaa jirtay munaafiqiin oo iyagu maadaama noloshu ay adkaatay xagga kale marka laga eegana waa waqtiga timirtu bislaato oo beerahay lahaayeen carabtu waqtigaasay u bislaataa marka nimankii munaafiqiinta iyagu marmarsiiyay sameeyana way hadheen ilaahay oo qadiyadooda ka warramayaba wuxuu yidhi walow araadu alkhuruuja laa cadduu lahu cudda baa ilaahay yidhi hadday marka horeba iraada doonitaan hadduu jiray inay rabaan inay baxaan way u diyaar garoobi lahaayeen baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ee diyaar la-aantu waxa ay tilmaamaysaa inaanay rabin maxay inay baxaan haddaba soomku ayuha alaxiba wuxuu inaga rabaa diyaargarow wuxuu inaga rabaa diyaargarow ah inaynu u diyaargarowno mansiladii loogu talagalay qofka mu'minka ah soonku inay gaadhsiiso inayna gaadhsiiso sida awgeed ayaa salaf ilumma markay ramadaantu soo dhawaato waa ku farxi jireen dee saan ugu farxinba qofka muslimka ahay rukun arkaantiisii diinta ah baa kusoo socdee soomay rumaysnin islaamkuba inuu 5 rukun ku tiirsan yahay 5 asaloo waaweyn buu leeyahay 5 asal maxaa ka mid ahaa shahaadada iyo salaad iyo zako iyo soon iyo xaj idan rukun ka mid ah arkaanul islaamkii markuu soo socdo qofka mu'minkii wuu diyaar garoobaya nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuu ugu bishaareyn jiray xadiiska saxiixu sunan النسائي ku yaalla wuxuu nabigu leeyahay ataakum ramadaan shahrun mubaarak farada allahu caza wajalla calaykum siyaama tuftaxu fiihi abwaabu الsamaa وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم نبي صلى الصحابة الله الضيّة رضوان الله عليهم
ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu wuxuu leeyay waryaadheen ramadaan baa idiin timi buu nebigu leeyay oo bil barakaysana ramadaan waa barakaysantay dhammaanteed ilaahay wuxuu idinku waajib yeelay buu nebigu leeyahay soon albaabada samada ama albaabada jannada waa la furaa abwaabu samaa waa la furaa acmaashiina la aqbalaya abwaabuljanna waa la furaa iyadoo laydinku dhiiri gelinayo abwaabta jaxiimana ama jahannamana waa la xidhaa shaydaamada waaweyn ee idinkiin fogeynayo dhanna waa idinka qabanayaa bishaas baa la yidhi shayaadiintu waa ijaaza compulsory leave baa la siiyaa kuwa waaweyn oo dhan waa xidhan yihiin bisha tan iyana habeen baana ku jira buu nebigu yidhi 1000 bilood ka khayr badan 1000 bilood cibaadadood waa intee oo 280 sannadood habeen ka khayr badan baa jira oo bishan ka mid ah man xurim qofka laga manciyey heli waaye khayrkeeda ramadaanta ama habeenka khayrkeeda qofka waaya faqad xurim kaasi khayr heli maaya baa la yidhi haddaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa bushaaraynaya saxaabadii buu bushaaraynaya waxaan ugu bushaaraynayaa waqti aan waqtiyada la mid ahayn inuu soo socdo nimanka dujaarta ah ee seasonalka wax iibiya waqti kasta qalabkiisa iibiyaan maalan markay ciidda rabaan inay wax iibiyaan ciid gaaleed ama ciid muslim ha noqotee ciidda waxa soconaya oo dhan bay soo diyaariyaan waxaan u arkaa waqti yar oo aan badnayn oo aada loo faa'iidi karaa inuu jiro faa'iidooyin badan la helayo qofka muslimka iyo marka bisha tani waa bil aada u khayr badan waa bilu qofka muslimkii maca allaahi jumlah uu kula baac mushtaraynayo waa bil aad dhalin karto dee 280 sannadood baad habeen dhalin kartaa 280 sannadood cimriga wixii aad cibaado samayn kari lahayd ayaa habeen ka mid ah ramadaanta aad samayn karaysaa idan waa bil aan waqtiga intiisa kale kuula mid ahayn saa daraaddeed qofka muslimkii wuu diyaar garoobaya bishan weynadeeda waxaa kuu tilmaamaya laba nin oo saxaabada ka mid ah ayaa soo hijrooday dabeetana طلحة بن عبيد الله وصحابي اللي ورن شري بي لدقه لبضا نين way jihaad galeen markii ay jihaad galeen ayaa midi shahiidnimo qaatay midkii kale waa laba nin oo soo islaamo islaamnimadoodu fiicnaatay oo nabiga la dagaalgalay mid baa dagaaladii shahiidku noqday kii kalena sanad kaluu sii noolaaday bishii ku xigtay ramadaanna waa joogo waa dabeetana si caadi u geeriyooday طلحة بن عبيد الله صحابي اللي ورن شري أيها وحي الريان أركي الرياد السديدة با قد تكون حقا وقد تكون خزعبلات يعني النبي عليه الصلاة والسلام حقوت المامية النبدي وحكا هاري وحكا ميدا محي الرؤية صالحة مركا الرياض ودبنا والنقطة باطل يوسكا ردبنا والنقطة صحابي نقول الرياضي wuxuu ku riyooday iyadoo jannadii ay gelayaan dabeetana saddexda yadaanu ahayn buu leeyahay aniga iyo labadii nina kale kii dambeed dhintay aan jihaadka ku dhimanin ayaa la yidhi soo gal kii baa la horreysiiyo horgalay dabeetana kii shahiidka ahaa baa ka dabagalay أنا أسيرك قالوا هذه أولي ما يقاري وقت قاقبال يدي بويدي مركا هو صوبر أروغي رياضي بافافتي نبي قال الله شيء نبي عليه الصلاة والسلام حكوا لي محاولة يا بيسان وإلى إلهي رسول كيسيو لبضا ننكي أنو سلاحين دوا الددال بدن شهيدو بي كي كلاش النظر كهر قالي تبيتنا نبي حكوا لي أليس قد مكث هذا بعده بسنة وكان ميانو سنة كان نولول دنبين من نبي كويري مركاسال ليدي ها وكان نولول دنبي وميانو رمضان تي دنبي سو غادي من نبي كويري هاي سو غادي باليدي او سو مسومين او مصلادين او مساجد كم كما تكنين سنة دون نبي كويري عليه الصلاة والسلام مركاسال ليدي ها فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض من نبي كويري
xadiidka kan ibnu maaja soo warinayo culimadana saxiixa ku tilmaamayaan wuxuu nabigu leeyahay labadooda ajarkooda inta u dhaxaysa cirkiiyo dhulka inta u dhaxaysa in leeg baa u dhaxaysa yacni ninkii shahiidnimada qaatay sanadkii hore kani muxuu kaga badiyey acmaashii uu samaystay sanadkii uu noolo ay ka mid ahayd uu nebigu leeyahy war ninku miyaanu ramadaan soo gaadhin aanu kaasi sii maqnaa soo kani ma joogin buu nebigu leeyahy oo ramadaan taa ma tukanayno ma soomayno waa kan sida awgeed axaadiis badan baynu nebiga ka haynaa uu nebigu leeyahy qofka ramadaan soma iimaanan waxtisaaban isagoo iimaan iyo ixtisaab yacni mu'minan billaahi si dhaba u rumaysan wa mukhlisan ku dhinta camalkaa soonkaa sameeya gufira lahu maa taqadama min dembi dembigiisa horaa la dhaafaa buu nebigu yihi waa ninka sooma waman qaama ramadaan buu nebigu yihi ninka habeenka ramadaan istaagana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi haddana nebigu wuxuu yihi waman qaama leylata alqadr habeenkaa gaarkaa ninka isa sii taaga iimaanan waxtisaabanna isna dembigiisii hore waa la dhaafaa taa macnaheed waxa weeyaan ayuha alaxiba ramadaan waa fursa waa tijaara raabixa bilaa shak waa tijaara ilaahay lala baac mushtaraynayo oo maxaa lagula baac mushtaraynaya ilaahay biliimaani walacmaali saalixa iimaan iyo camal suuban waa fursad qof kasta oo muslim oo dembi ku raraa uu dembiga iska rogi karo waa misfaa yacni waa xamaam ruuxiya waa meel lagu qubaysto lagaga qubaysto wixii dembi ku soo galay imise ishaadu wax xun aragtay imise dhegtaadu wax xun maqashay imise carabkaagu wax xun ku hadlay imise xisaabi uun waxaasoo dhan qaabkii la ysaga maydhi lahaa weeyaan sida awgeed buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maalin buu mimbarka fuulay isagoo leh aamiin 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 saxaabadii waxay dhahen maa kunta tasnacu haada ilaahay rasuulkiisiiyo saan maad yeeli jirine maanta maxaa soo kordhay mimbarka markaad fuulayso si caadi umaad u fuuli jirtay laakiin intaad xabad fuushay inaad aamiin tidhahdo kala fuyo aamiin oo aamiin tidhaahdo maxaa isbedelay bay nebiga weydiinayaan calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi jibriil baa ducaynayay ama saan idhaahna habaartamayay aniguna aamiintaan u lahaa buu nebigu leeyahy nebi maxamed iyo jibriil maxay isugu tageen ee midna uu ducaynaya midna aamiin u leeyahay nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam jibriil baa wuxuu yidhi ragima anfu cabdin dakhala calayhi ramadaanu falam yugfar lah ragima anf waa eray carabta ku isticmaasho sankiisaa bowdhoobaya ala soomaalida ku tara afka u dhac afka ha u dhaca buu leeyahay ninkay ramadaan u soo gashay ee haddana dembigiisa la dhaafi waaye afka ha u dhaca buu jibriil leeyahy carabtu waa sanka ha u dhace markaasuu nebi maxamedna leeyahay aamiin jibriil baa haddana wuxuu yidhi afka ha u dhaco ninka maxay agtiisa laygu sheego nebi maxamed oo agtaada inta lagu sheego calayhi salaatu wasalaam kugu saliyi waaya nebiga ku saliya dabeetana nebigu aamiin buu ku yidhi markaasuu haddana wuxuu leeyay ragima anfu cabdin adraka waalidayhi aw axadahuma afka ha u dhaco qofka labadiisii waalid soo gaadhay ama mid iyagoo yacni gaboobay falam yudkhil iljanna oo janno ku geli waayey labadiisii waalid samafalka iyo axsaanku uu samaynayo kaasina afka ha u dhaco xadiidkani wuxuu tilmaamayaa 3 camal oo janno lagu galo midi waa waalidka iyo ixsaanfalkooda midna waa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ka kalena waa ramadaan nimay u soo gashay oo haddana dembigiisa la dhaafi waayey yani 3 qof ee la habaarayo midi waa ninkii nebi maxamed ku salli waayey midna waa ninkii waalidkii u samafali waayey ka saddexaad waa maxay qof ramadaanna ay u soo gashay ramadaanna ka dhammaatay isagoo aan weli dembigiisa la dhaafin yacni ma istafaada min ramadaani shay-a ramadaan aan waxba ka faa'iidin yacni ninka ramadaan wax ka faa'idi waayey man xurima khayruhaa faqad xurim buu nebigu leeyahy
ليلة القدر يوحي لما نك تأخير كذا لقى حرام يلا خير كذا واي كاس خير هي اللي ما يبون النبي يقول عليه الصلاة والسلام سيدا وجد أيها الأحبة مركب وحلين وحين هو بهنا رمضان تودي يرجعونه وودي يرجعونه سيدي كو إلى هيدا بقى قولنا في لها النبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية حديث كمسلم كيالا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر حديث كان يوحي هي صلاتها شنطة هي جمعة إلا جمعة هي رمضان إلى رمضان مدوى لبا وحيد هي مكفرات لما بينهن لبدا دحدو دوحي أهامدا بقوضة لقضافه إذا اجتنبت الكبائر هدي الدنبية واوين لقفوق هذا يعني واحد شيره هرت الصغائر وذنوب توقو بدن وهي مرر بدن waxaa laga yaabaa qofku hadduu qof nool bay hayde inuu kabiiradu ku dhaco xasuusto ilaa uga toobad keeno صغائرta laakiin dadku waa iska wadaan صغائرta waa iska socotaa markaad masaajidka ka baxdo misaad naag qaawan aragtaa misaad wax ka mamnuuca maqashaa misaad TV aragtaa misaad wuxuun ku hadashaa misaad halkeer fadhi ku dirarka tagtaa oo ama adigu aad wadaa ama iyagu ay wadaano aadna dhageysanaysaa ila wasalama shuune yani haddii saqaayir la ururinayo waa haddaynu kabaa'irta kaba indha qarsanno waa rarannay waagu markuu bariyey ilaa iyo gabalku intuu ka dhacayay intaad ka seexanaysay dee intaa ama waad hadlaysay ama waad dhegaysanaysay intee khayr ahayd uun xisaabi saaka markaad soo kacday ilaa iyo caawa intaad seexanayso ama waad hadlaysay ama waad dhegaysanaysay mid hadlaya intee baa khayr ahayd uun isweydii markaa yani waxaynu garan karnaa saqaa'irta maalin walbayna fuulaysa intay taagantay dhowr shay oo saqaa'irta lagu maydhaa baa laynoo sheegay waxaa la yidhi salaad ilaa salaadi way maydhaa salaada aad jamaca la tukato ninkii yidhi gabadh baa nunkaday ee nebigu ku celceliyey muxuu nebigu ku yidhi war maad nala joogin markaanu salaada tukanaynay ma waa idinla tukaday buu ku yidhi ina alxasanaat yudhibna sayi'aat buu nebigu ku yidhi يعني صلاة إلا صلاة دات صلاة جمع إلى لسه صغير تود حيسة ويترترتا جمعة إلا جمعة رمضان إلا رمضان حلقة بين السؤال سويديسو وهذه صلاة إلا صلاة شنتي صلاة ضمان تهدي ترترين جمعة إلا جمعة محلة ترترية إلا المالك استشم بتسوي تكتي هذه جمعة إلا جمعة وترتري maxaa ramadaan ilaa ramadaanta la tirtiraya acmaashu kuwa saalixa ah acmaasha saalixaadka ah iyo acmaasha madmuumkaahiba aahaarteeda waxaa ka dhalanaya waa bixasabi camali alcaamil waa bixasabi istifaa'i shuruuط alqubuul waxyaaba badan bay ku xidhantay tusaale مثلا النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث كحسن كعلماء كتل المامان أبو داود النسائي ابن حباني ركبة يوريني يعني إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته متكين باتو كذا وأن صلاة دي سلو قريب النبي يقول طبعا ميلود ميل مو يعني تبتنا النبي يقول سيوضي تصعها ثمنها خمسها سدس سيوضي النبي عليه الصلاة والسلام إلا نصفها وكجارسيني متكين باتو كذا صلاة دي صلاة طبعا ميلود أو ميلهان 10% متكلا تكذا صلاة دي صلاة محي طبعا ميلود مركا الله غيبي يعني تصع متبال الثمن 1/8 متبال محي سدس 1/6 متبال خمس 1/5 متبال باليد الربع كوارتر متبال ثلث له 1/3 أيو سلادي سلاي متبال نصف له نص
oo waa maxay dee salaada waxaad leedahay intaad ikhlaas tahay soo jeedo haddaa qalbigaaguba maqan yahay iska lahayd waday iyo ninkii salaadiisa xaadirka ahaayee wuxuu akrinaya garanaya u fiirsanaya soo jeeday dee isku ajar maaha labaduba salaad bay tukadeen laakiin salaadoodu waa maxay isku ajar maaha walidalik nabigu calayhi salaatu wasalaam ama qur-aankaba ilaahay wuxuu leeyahy waaqimi الصalaata طarafiya الnahaari wazulfa min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikra lidakiriin baa ilaahay yidhi salaada oog labada dacalee maalintii iyo habeenkii wax ka mid a ina alxasanaati yudhibna asayi'aat wanaagyadu ama xasanaadku waxay tirtiraan buu nebigu ayuu qur-aanku leeyahay sayi-aadka dalika dikra lidakiriin laakiin salaadaha iyo cibaadaadka iyo soonka iyo waxaynu samaynaynaa waxay ku xidhan yihiin wakhtiga la sameeyo kow oo awqaad waa kala fadli badantay makaankaa kala fadli badan meesha lagu sameeyo maalan salaadaad kacbada ku tukato iyo taad gurigaaga ku tukato hadday isuma dhowa ama masaajidkii nebi maxamed salaadaad ku tukato iyo taad meel kale ku tukataa dee isuma dhowa 1000 salaadood iyo 100 kun oo salaadood baa udhaxaysa waxaa la mid ah waqtiga salaada waqtigu markay soo gashay aad jamaca ilaalisay tukatay aad hadhow tukatay dee isku mid maaha salaada jamaca ku tukatay aad munfaridka tukatay isku mid maaha waxaa la mid ah xuduuri alqalb sidaad xaadirka u ahayd salaadaad adoo maqan tukato haafila iyo adigoo mutayaqid oo xaadira salaadaad tukatay isku mid maaha waxaa la mid ah ikhlaaska مثلا nabigu calayhi الsalaatu wasalaam axaadiista wuxuu tilmaamayay mid aakhiro dunuub badan inta loo qabsado la leeyahay wax camala ma garanaysaa oo marka dambe le ilaah waan wax camalo oo kaloo dheeraad oo sameeye garan maayo khayra oo bataaqa la keenayo bataaqada maxaa ugu qoran tawxiid laa ilaaha ila allah diisi baa ku qoran muxamedun rasuulullah laakiin waa laa ilaaha ila allah mukhlisan min qalbi waa laa ilaaha ila allah nooc gaara ah taasaa kafada loo saarayaa dabeetana taasaa ka cuslaanaysa wixii kale oo dhan oo haddaa dadka laa ilaaha ila allah yidhi oo dhammi naarta waxba ka geli maayaan miya maya waa gelayaan qaar badanoo asxaabu laa ilaaha ila allah yabaa naarta gelaya oo qaar shafeecada nebi maxamed lagaga soo saaraya oo qaar shafeecada malaa'igta lagaga soo saaraya oo akhiiran ilaahay subxaana wa tacaala waxa ku har ka soo saaraya dabcan wixii tawxiid ku dhintaa naar ku waari maayaan laakiin geli maayaan lama odhan karo naar ku waari maayaan laakiin qaar baa jira tawxiid intay ku dhintaan aan naartaba gelaynin tawxiidkiisu waxa kaloo dhan uu ka culus yahay waxay leeyihin waa acmaali lquluub baa kala cuslaysa waxa kan walidalik nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa salaadaheenu inaanay sinnayn wuxuu kaloo tilmaamayaa man iqtasala yowma aljumca walabisa min axsani hiyaabi wamasa min tiibin in kaana cindah uma ata aljumca ninka maydha maalinta jumce ee dharka waxa u fiicana uu haysto soo xidha ila waa maalin ciideed jimcaha muslimkuya ee dabeetana udug haddii uu haysto soo marsada ee dabeetana jimcaha yimaada ee aan dadka ka dul taltallaabsanin buu nebigu yidhi falam yatakhata acnaaqa annaas dadka aan jiidhjiidhin ee halkii ugu bannaanee uu helo fadhiista oo tukada wixii alla u qoray inuu tukado dabeetana marka imaamku yimaado aamusa oo dhegaysta kaanat kafaaratan lima baynaha wa bayna jumcatihi alatii qablaha buu nebigu yihi tani waxay kafaaro u tahay jumcadan iyo jumcadii ka horreysay wixii u dhexeeyey idan jumcada waynu wada nimi laakiin isku mid maaha jumcadeennu mid baa goor hore yimi oo la mida buu nebigu yidhi sidii nin neef geela sadaqadaystay ka ku xiga saacadda ka dambaysta baa nin neef saca sadaqadaystay neef lo ah ka ku xiga neef adhiya ka ku xiga digaagad ka ku xiga maxaa la yidhi xabad beeda dee ninka xabad beeda sadaqadaystay iyo ninka neef geela sadaqadaystay ma isku meel baa salaadoodu dabeetana nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam haddaba
إلهي وحو قرآن كله إنما يتقبل الله من المتقين إلهي وحو عماشا كاقبل دادك متقين تا قف عمل بو متقي كويه معناه إذا ماها قف وضا تقي يبا شريا ميد وذا فاسدة waxaa laga yaabaa camalkan isagoo kaa xumaaday salaada hore iyadoo kaa xumaaday salaadaada dambe inaad adigoo xaadir oo qalbigaagu soo jeedo fiican tukatid idan camalka intaad soo jeedabaad ajarkiisa weyn leedahay intaasaa inta dunuubta masaxaysa bay culamadu yidhaah markaa salaadahaagii haddii laysu gegeeyay ay wada dhammayn waayeen oo jimcadaadii marka lagu daro ay haddana wada maydhi kari weyday ramadaantaadu hadday fiicnaato iyadaa maydhaysa wixii inta hore u taag weyday ولذلك هدي كوبية طبعا بلوت صلاة خلخلا ينسو تكنيني أما جمعة إمام كو تاغنونا ينسو فوليني سو قليني مساجدك أنا سكوت داينو بيشا تنيني نقطة بيشي أينو ترتير لهين وحي عمل إنا قتك يوردن وحي ذنوب إنا قد عدي هوردن بلا إنو ترتره وحين رمضان قبلنا لبا الشيبة وغفي عنه mid waa inaynu dembiga iska maydhno midna waa inaynu darajaadka kor u korro ajarka aynu shaqaysanayna inaynu badinno mustaqbalka u dhiganno dembigii hore inaad iska maydhidoo nadiifisid ramadaan waad awoodi kartaa inaad ajarka biirisana markaad intaa maydhana waad ziyaada ani dunuubaad shaqaysato na waad awoodi karaysaa سأوجد بقى منقبضة رمضان أجرها إلى ذا وحكم ده نبي عليه الصلاة والسلام حديث القدس جوح كشاجي إلهي بقى وحيري كل عمل ابن آدم له خيرنا بقى آدم ورد من عمل كشقيستاني يقاله إلا الصيام مو يعني أو إلا الصوم صوم كمو يعني فإنه لي وأنا أجزي به استجا أنا إسكاله وكأبال مرين يبقى إلهي تبعت أنا حديث جوح وصيت المامية والصيام جنة صنك وقاشان ذنوب تلقى قاشانتو نار لقى قاشانتو فإذا كان يوم صوم أحدكم متكين هدو مالنتي سيسون تشوغو فلا يرفث يومئذ ولا يسخط يوم مالنت أفحمك وهدين ويو قيلني هدي عيدك عيدا نبو قيل أما سيكول الدقاء لانتنا أجر كاقا هيسكد منه وحتى هذا إني امرؤ صائم وروان صومنا كله قفك وعايا أما كل دقالما إني امرؤ صائم كله والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه حديث كان انت ينوص عنان كدن لي وحويا إلهي باوحو لي سبحانه وتعالى بني آدم كو عمل كيس دمانتي ساقا اسكالي صونتا موياني صونتا سي أني قالوا كأبا المرينية حديث كمعني سوسوية سي الله فصيرية فصير هذا تربى ضمبي علماء الشيغان لكن علماء بربا واحد هذا لبدا قول السفيان بن عيينة بأقول الدو ولبا لبدا قول مدبا نصوص تسير رجحيسا الإمام سفيان بن العيينة محدث كيلو رنشري الشيخ الإمام الشافعي رحمة الله عليه سفيان بن عيينة باوحو ليه هي لبا قول لكن كصحة هذا ينسكق هذا إنه حويان صونكو أعماشك الأردن بني آدم كاسكاله وحانا إلى محي أجر محدود بيلادي أجر حديثا بي أعماشك الأردن ميلادي صونك مو يعني أحاديث بانا ساعة دينسا الأصل أعماش حير باي لهي ولقياه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها قفك حسنات سميستا وانو طبعا لابا يا باي لهي حسنات كستوات سميسته طبعا لابكيت ايا لهي كسينيا لكن انت سوى انت حق الله كوسي لكن هدي اخلاص كاغو بطو ميل في عليك وقول عضو حسنات كقاركود بكبطو قاعدة إلى 700 تضواب بقول أو تشير إن لقول بالله طبعا لابكو ويمسا هدي أتشيلين لبا حدو الشيلين كلا لو قدر ويمسا 100% صما طبعا لابكو مركا 1000%
asal ilaahay waa qani asal wuxuu inooga dhigay xasanadeenu 1000% baa u asala waa minimumka abtu waxay soconaysaa maxay 700 ضعف يعني 700,000% in lagu dalaco shilinkaagii 700,000 oo shilin inuu gaadhi karo kow liman yashaa ayuu ilaahay u dalacaa wallahu waasicun caliimna weeyaan haddaba soontu waxay culimmadu leeyihin xeerkaa way ka baxsantay soonku xeerkaa way ka baxday oo xadiis saxiixa wuxuu leeyahay kullu camal ibnu aadam يضاعف له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به عمل كستو قفكو سميستو الله لبن بيا طبعا شير إلا إيا تضوى بغلو شير من فضل الله سبحانه وتعالى صونك مو يعني بالي أما صونك استقى أنا اسكالبا إلهي لو يسوى وقار isagu markaa culimadu waxay leeyihiin anaa leeda idaafadatani waxay macnaynaysaa bay culimadu leeyihiin sirta ah inaanu iyadu ku jirin waxyaabahan uu xadaysan yahay ajarkooda ee ajarkeeda ilaahay uma garanaya walidalik ba mufassiriinta qaarkood waxay ku fasiraan aayadan quraanka ilaahay leeyahay inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisaab shahru sabrina waa la yiraahdaa shahru sawmna waa la yiraahdaa ودي صبر دمانتي بقف كل إيمانية إنه عن المعاصي وعن الشهوات كصومه إنه على الطاعات كصبره هي وحي مشاكل يا آلام يا مقادير سوى قاعدين كصبره هذا بقى بشتاني وبل أن ربنا لبا وح إن نهله كو إن لهي دم بقى قاعد عفه هذا ما هي إنه يد الدم بكررسانه dadka qaar baa bishatan musalsalaad iyo balaa bishii uu dambiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba ma aha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo bilaad marna hurudow marna ma aha waa bil qofka muslimka ay ijtihaad ku jiro waa qofka muslimka waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaarsiiyo muxuu rabaa in ilaahay dambiga ka maydho wuxuu rabaa ajar inta ugu badan la inuu shaqaysto wuxuu rabaa inuu ku biiro min utaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ka xoreynaya habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bisha tan oo dhan wadaaka fi kulli layla buu nabigu yidhi habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyay إن الدم بكررسة معها ولذلك بقى عائشة مركز تدي إلهي رسولك يسيو هديبا إلهي هليشيا كبق مهبين كاسي ليلة القدر محان إلى هذا بيكو تدي نبي وحيدي واحد إله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إله الدم بقى يقرقني إله يعفي حط كدو عيسى تهبين كاسي هنقطب النبي عليه الصلاة والسلام إله يعفي bishatan cibaadaadka la sameeyo culimadu waxay yiraahdaan marka cibaadooyinkeedu uma dhigmaan xataa cibaadooyinka bilaha kale la sameeyo walidaalka ba mesela nabigu wuxuu leeyahay cimrada la cimraysto ramadaan gudaheeda تعدل حجة وفي بعض الروايات حجة معي رمضان إن تسو عمريسته حج بيقول لك أنت حق أجر كمرك الله يقول نبي التلمامية أما حق الدب الدافك أما وينيده حج بيقول لك أنت بالين روايتك قاركود بقول بوح عليه حج النبي محمد لحجتي حج وردن ماها حج وداد يرفع عضي ماها حج النبي محمد لسعتي أيه ودي أنت هذا واحد لنا أيها الأحبة بشتني وبال وقفك مسلم كاهي تريننج كلا وكورس وقفك مسلم كي تدريب كقاطه تدريب كاسي كو وحصلين يا إنه أسكع إسكع مايله قال لماذا يو ذنوب تردمي ونجاسة القلب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بإلهية المامي قلبي واحد حالي ما كانوا يكسبون أسكع جوردن إنه قفك إسكع مايله
waa waxa koowaad. waa marka labaad ee naar inuu ku xoroobo, waa marka saddexaad ee inuu ajar helo, waa marka saddexaad ee waa bil uu tagyiir kaba suurtageliye qofka muslimka inuu noloshiisa bedelo. waxyaabaha bini aadamka ugu adag ee noloshiisa ka mid ah cunooyinka ka mid ah, cunadaadii baa la raray, waqtigaad wax cuni jirtay iyo waqtigaad seexan jirtay iyo wixii oo dhan baa la bedelay. idan haddii waxyaabihii fastka ku ahaba la bedeli karo, everything noloshaada ku tacalluqa waad bedeli kartaa. You can change. balwad ha noqoto, caada xun ha noqoto, dambe ha noqoto, wax kasta oo nolosha ku tacalluqa. waxay yidhahdaan culamadu bisha tani waa shahrun litagyiir gebigeedba. waa systemkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto, balaan cusub inaad degto oo ah saad u xoroobi lahayd ee naf iyo shaytaan uga xoroobi lahayd. walidaalika baa waxaa la bedelay waqtigaad wax cunaysay, waxaa la bedeloo la cidhiidhiyey waqtiyadii, waxaa la kordhiyey waqtiyada cibaadada. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam acmaal gaaraa jirta uu bishan inoo sii tilmaamay, waa kuwa ugu culus ee traininka lagu qaato. traininada ugu culus kow dee isaga waa ramadaan, waa wada garanay, iyada in la soomayo waa garanay. waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxaa ka mid ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa bishuu malakul jibriil qur-aanka la daraasayn jiray. malakul jibriil baa u yimaada, nebi maxamed iyo malakul jibriil baa waxay daraaseeyaan kitaabka alle, ilaahay hadalkiisa. idan bisha tani bay culammadu yidhaahdaan waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho inuu ku tadaburo ilaahay kitaabkiisa oo fahmo ilaahay muxuu nolosha ka rabaa inaan sameeyo. waa aakhir wasiiqa samada ka soo degta oo bini aadam lagu saxayo, aakhir hidaaya, absolute value bini aadamka loogu talagalay noloshiisa oo dhan inuu ku balaangaraysto. ka waran madaxweynaha waddankani ama ra-iisul wasaaradda waddanku hadday waraaq ku soo dirto maalin walba aad akhrida laakiin weligaa aanad fahmin, maxaa lagu odhanayaa? qoftee yaraa khabal wax u dhiman yihiin baad u ekaanaysaa. waraaq adiga dantaada ka hadlaysa oo kuu soo degtay oo aada gacanta ku haysato oo weligaa aada akhriyaysuuna aada fahmaynin. inaynu qur-aan dhan fahamna daaye faatixadaynu fahm weyne, maalin walbana 7 jeer akhrino. idan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bishan wuxuu mudnaan gaara siin jiray qur-aanka iyo akhriskiisa, qur-aanka iyo daraasayntiisa. walidaalika baa culammadii waaweynayda muslimiinta rag ka midi xataa culumta kale ay dhigi jireen way joojin jireen. ragga badh baa culumta kale ay dhigaan oo dhan. imaamu maalik oo u soo xidhxidhan jiray xadiidka nebiga siduu u dhigayo, waxay dhahaan bisha tan culamo badan baa cilmiga kaleo dhan joojin jirtay oo waxay odhan jireen bishana waa bishii qur-aanka. akhriskiisa badiyaan. imaamu shaaficiya waxaa laga sheegaa dee waxaynan inagu hawaysanaynin inuu bishan 60 jeer qur-aanka dhammayn jiray soo naqliyaan. idan bishani waxa koowaad innagana waxaa laga yaabaa imaamka jis ku tukiya in la yidhahdo masaajidkaas waa masaajid salaad badan oo muxuu sameeyaa jis qur-aan uu ku tukiyaa. waxaa laynaga rabay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam habeen buu salaad galay, dabeetana saxaabi baa u yimi wuxuu yidhi iskaga xidho, waa kan dee nebigiiba tukanayay, waa ku xidhay. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam faatixadii markuu ka baxay buu albaqara bilaabay. waxaan sidhi buu yidhi dee kolley 100 aayadood meelahaasuu akhriyi doonaa. waa dhaafiyey, albaqaroo dhan buu dhameeyey buu yidhi waa 286 aayadood, waa 2 jis iyo dheeraad. albaqaroo dhan buu nebigu dhameeyey buu yidhi. haddana albaqara marka uu dhammaynayey ayaan sidhi buu yidhi bes dabadee hadduu rukuuci doonaa. suuratu nisaa buu bilaabay buu yidhi, markaasuu iyana dhameeyey buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. markaasaan sidhi buu yidhi hadduu iska rukuuci doonaa. markaasuu aali cimraan dib ka bilaabay buu yidhi. haddana suuratu aali cimraan buu dhameeyey, waa 5 jis iyo dheeraad ayuu hal ragca akhrinayaa. intaa waxaa ka mudan weliba wuxuu leeyahay aayad cadaab muu soo marin ilaa ilaahay buu ka magan gelayay, meel tasbiixa muu soo marin ilaa wuu tasbiixsanay. yacni qur-aan la leeya maahan, qur-aan lagu tadabburayo la fahmayo wuxuu sheegayo laga jawaabayo oo ahaa
isagoo salaada ku jira markuu tasbiixaad iyo xamdalo soo maro uu tasbiixsanayay markuu soo maro cadaab iyo wax la mid ah uu ilaahay ka magan galay markuu nimco iyo janno iyo wax la mid ah soo maro uu rabbigii weydiisanayay hal ragco ku tukaday hal ragco ayuu shan jis iyo dheeraad akhrinaya xawaali idan nabigu calayhi salaatu wasalaam ramadaantii u dambeysay laba jeer buu la dhameeyey qur-aanka daraasadiisii uu la dhameeyey kuma malakul jibriil idan bishatani waa biluu qofka muslimkii u xidhxidho warbal ilaahay warkiisa faham horta rabbi waxa uu kuu sheegayo rabu الsamaawaati wاlard ayaa adiga kula hadlaya bidaatik dadka qur-aanka markay akhrinayaan cid kale ka fakeraan cid kale ha ka fakerin adigun baa ilaahay la hadlaya qof walba gaarkiisa loola hadlaya waxyaabaha bishatan uu aadka u qaban jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam ama muslimiinta uu faray waxaa ka mid ah dee qiyaamu leylka taraawiixda salaada badan ee la tukanaya inaad salaadaha badsato waxyaabaha la isfaray waxaa ka mid ah bishatan aadka loogu dadaalayo oo nabigu samayn jiray atasaduq sadaqaadka inaynu inagu wax cunnaa baynu badinay inaynu dadka wax cunsiino sidaa awgeed ayuu saxaabigii muxuu lahaa nabigu wuxuu ahaa mid deeq badan dee asliyan baa nabiga caadadiisa waxay weligii wax la weydiiyey maya ma odhan aduu bal qiyaas qof wax la weydiiyey aan maya odhanin weliba dee dadku isku mid maaha markaan dadkaba cidi kaa dhex aqoon aad meelahagaa iska joogto cidda kugu soo beegmaysa wax ku moodaysaa dee waa dad yar waa in yaroo qaraaba iyo laba saddexa saaxiib ahayd aynu cid kale bay wax ku weydiinaysa laakiin ka waran haddaad dad madaxdood tahay oo weliba aanad askar iyo cid ku ilaalisa lahayn oo weliba hadduu madaxweynuhu 5 salaadood halkan inagula tukado oo cid dadka ka celinaysa aanay jirin imse qof baa wax weydiisan lahaa so qof waliba dantiisa kulama soo dhaqaaqeen oo isma yidhahdeen waa madaxweynihii ka waran hadduu rasuul ilaahay yahay rasuulkii ilaahay oo dadka dhex jooga waan meel la ku maqnayn oo 5 salaadood ba la arkayo oo haddana weligii wax la weydiiyey aan maya odhanin wax la weydiiyey aan qatu maya odhanin haddana isagoo sidaas noloshiisu ahayd ayaa la yidhi haddana ramadaan wa kaana ajwad mima yakuun wuxuu ahaan jiray fii ramadaan bisha ramadaan wuu ka deeq badnaa bilaha kaloo dhan baa la yidhahdaa intuu bishaa bixiyo way ka gadisnayd waxbixintiisu ka riixil mursala bay ahayd buu xadiidku tilmaamaya sidii dabayl dhabanaysa dabayl babanaysa ama dhabanaysa ayuu la mid ahaa yacni nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisi way furayd bishatani waa bil markaa dadka muslimiinta ee takaaful ijtimaaci isu naxariistaan foqorada wax la siiyo masaakiinta wax la siiyo qaraabada la xidhiidhiyo tolka la xidhiidhiyo cid walba wax la siiyo waxyaabuu nabigu bishan samayn jiray waxaa ka mid ah iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba kasii go-i jiray marka horeba bisha cibaada lagu jiray haddana qayb kaloo bishan ka mida buu ictikaaf wax la yidhaahda samayn jiray 10 maalmood 20 ma waa ictikaafa ictikaafku waa maxay waa inuu qofku masaajidka isku xareeyo aanu dib uga bixin ilaa lidaruura inuu ama masquultiga iyo ama cunno la siinayo wax allaaliya wuxuu ka maarmi karo inuu ka maarmo albaabka masaajidka inaanu istaagin oo markaa masaajidka gudihiisa maxaa laga qabanaya dadka barhba intay ictikaafka kusoo xaroodaan hurdo uun haddana hurdo looma soo xaroodo daad seexanaysa gurigaaga baad seexan lahayd waxaa loo soo xaroodaa in cibaadada la maximize gareeyo bishii waa sii dhammaanaysaaye 10ka dambe inaad goosato markaa the last days baad ku jirtaa 10ka maalmood ugu dambeeyana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafi jiray marka ictikaafku macnaheedu waa maxay xaaraan iyo baabka ka kaalaya mubaaxaadkii iyo xalaashii buu ka tegayay xataa xalaal ajar looga qorayuu ka tegayo ajar ka weyn uu raadinayay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay ninku gabadhiisa markuu u tago hadduu xalaal ugu tago ajar baa loo qoraa siduu xadiidka nabigu sheegayay laakiin 10kan maalmooda dambe maca dumarka waa laga fogaanaya walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid baa ilaha yidhi haweenkana ha la dhaqmina idinkoo ictikaafsan baa la yidhi idan 10kan maalmood calaa'iqu dunya kullaha buu jaraya wuxuu u fasaxa qaadanayaa inuu umuurta aakhiro oo qura bishan ka shaqeeyo inuu 10kan maalmood umuurta aakhiro oo qura uu ka shaqeeyo
waxyaabaha bishan ku badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ducaa ilaahay baryadiisa walidalik baa aayadda ducada ugu khaasaysani waxay ku soo aroortay maxay fii wasati aayaati sawm waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyu'minuu bi aayaadkaasi kadib baa walaa tubaashiruhuna waanta aayaadka dambe ictikaafkii ka warramaya soomka aayaadkii soomka kalena waa ka horeeyaan idan waxay dhexda ugu jirtaa maxay waxay dhexda ugu jirtaa ramadaanka walidaalika culamadu waxay dhahdaan waa astaan tilmaamaysa khusuusiyada ay dacwadu baryada ilaahay leedahay bishan gudaheeda haddaba ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina leeyahy waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun kuwii cudurdaarka la siiyey ayaa haddana waxaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin markii la yidhi ayaa haddana waxa la yidhi waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun adigoo cudurdaar haysta haddana waxaa la yidhi waan tasuumuu soonkaa idiin khayr badan haddaa wax garanaysaan baa ilaahayna leeyahy subxaanahu wa tacaala haddaa wax garanaysaan haddaba ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay bisha tan soo socota in shaa allahu tacaala diyaargarowgeenu ha noqdo sidaynu ilaahay ugu noqon lahayn rabbi ugu xidhmi lahayn aakhiro ay u noqon lahayn taargetkeenna ugu weyn iyo saynu cadaabkeeda uga badbaadi lahayn janno ilaahay u weydiisan lahayn oo u geli lahayn bisha tani markaa ha noqoto daal badani waa inuu kaa muuqdaa oo ah fa idaa faragta fansab ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa inaynu ku daallo ee bil kaslaamnimo badan ay naga muuqato laziness bil aynu qaadna maaha bil dadku caajisa waan soomanay qof walba idhaa nafta ka sii baxdo ee waa bil aad u baahantahay waa tababar baad galaysaaye 11 bilood oo dambaad usii sahay qaadanaysaa 11 horena dembigoodaad iska maydhaysaa waa bil aad usii saha qaadanayso cafaariiddii waaweyneyd ee abaalisadii baa lagugu soo dayn doonaa markay dhammaatay saad isaga celin lahayd haddaa trainingka ugu sii jirtaa ibliisaanu dibku ugu duufsan lahayn iyo kooxdiisii idan haddaad bisha lafteedii dayacanto dee waad wada dayacmaysaa saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay man xurima khayruha faqad xurim ama uu aamin u leeyahay jibriil oo leh ninkay ramadaan u soo gasho fansalakh oo ay dhammaato walam yugfar lahu uu leeyahay afka ciidda ha daro nebi maxamedna waa aamiin leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inta gaadha bishatan ee asiibtee ka faa'iidaysata ee ilaahay ugu dhowaata in rabbi inaga yeelo sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam alxamdu lilah rabbi alcaalamiin